السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل جوعان وناكسن مركلي فيديو اسم جن كاد مال سلطان وأمسين جنال لقوا مسلسل لوادا مال وناكسن هبي وناكسن صباح وناكسن ظهر وناكسن عصير وناكسن كل شيء وناكسن أصحاب تعيش سود وادا أصحاب تنسوا كل سود وادا لما أنت مسود وادا لما أنت ما تجعلها إن شاء الله هو جن كاد أقول سبسكرايب لايك شير كومنت صحبة لو تقال ما سبسكرايب كسر ما لايك وشير كريه لما أنت مستير ما تدرون إن شاء الله هاي إن شاء الله مركلي فيديو عصب وقبلين ويني ما تاي marka insha Allah barkale barnaamijkeena ila tali waxay naga soo gaartay burqadani wiil lagu magacaabo Zakriya wuxuu yiri wax salaam walaashay adiga dhamaanba familigaada waan ka qaadnay walaalani dhamaan familigayga aan qaaday familigayga waa museyn waaye marka insha Allah wuxuu yiri Zakriya waxaan ahay wiil ku nool dalka South Africa waliba gobol kamid ah South Africa jooga waxaa jirto 2018 waxaan sameeyay laakiin ilaa ay hadda nolosheedii aan ka shalayo qisadaas ayaan u baahanahay in dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay igala soo taliyaan waxaan ku guursaday South Africa gabar Soomaaliyeed walibana waalidkeed u keensan meeshaan inay ka shaqeyso laakiin ani ayada aan is afgaranay kadib aan is guursanay waxa dhacday gabadha markii aan is guursanay waxay bilowday inay dhahdo waalidkay biil qof kasta ehelkay ka mid wax ku soo weydiisto ayna siisid anigana waxaan ahay qof aad u lacag jecel haddana suurtagal iimahin inaan qof kasta lacag siiyo waayo waxaan ku xisaabtamay lacagta armay ka dhamaata armaysan noqota waxaa dhacday buu yiri waxaan ku iri okay wax kasta iska hagaagaya maalintii dambe wuxuu igu tiri aabahay wuxuu u baahan yahay lacag waxa soo galaysa Ramadaan hooyaday oo mii joogtay wuxuu u baahan tahay lacag kale abtigay iyo adeeraday adiga dad badan bay ii tirisay buu yiri oo lacago u baahan lacagtii markii aan total garay oo lacag hidan aan xisaabay waa lacag 1200 iyo jab noqotay lacag hay dadku rabto waxaan ku iri lacagaha intaas oo dhan ma awoodo waxay igu tiri macquul mahan ama aniga ayaa difuraysaa oo shaqadeedu ku laabanay ama waad siinaysaa waalidka waa shaqadeeda adiga ayaa ii diiday haddii aan shaqaysan lahaa adiga ayaa ii diiday oo gurigaan fadhi waxa artid u weydii waa qasab markii waalidkay wax xalaal wuxuu baahan aad u dirtay waxaan ku iri buu yiri okay baan ku iri waan siiyay nafteedii waan ka soo qasbay dukaan weyn baan lahaa waan ka soo qasbay nafteedii waan siiyay kadib waxa dhacday haddana dhowr bilood kadib haddana inay igu tiraahdo sidii oo kale dadkaas haddana lacag ay u baahan yihiin si waliba abaar xun ayaa wadanka ka dhacay dadkaas si ay igu tiri waxaan ku dhahay wiil okay laakiin markaan shaydaan ayaa ila taliyo oo waxyaabo xun iyo sabare waxa dhacday buu yiri waxaan lacag soo siiyay qolyo tuug ah waxaan ku iri intaan qolyaha tuugta lacag soo siin buu wuxuu yiri waxaan u furay meel yar oo meherad yar oo beenbeen oo waxyaabo sharabi waxa saarayeen kadib tuug baan ku soo diray markaan meherad u furay isbuuc labaad baan qolyo tuug lacag soo siiyay ku iri meheradeeda ku dhex guba haday soo shan qartan xabad ku dhufta sida ayay sameeyeen meesh ay ku dhimatay wilib dhowr xabadood ay ku dhufteen sida ayaynu ku dhimatay tuugtina lama qabanin anigana waalidkeed waxaan u jiray inaan ahay qof xaaskiisii ka dhimatay way ila murgoodeen way ila dhibtoodeen waxay ugu yiraahdeen haddii gabadheeni ay dhimatay waxaan ku siinaynaa walaasheed ka yar laakiin waan diiday waxaan ku iri gabar ma guursanayo mana rabo hadda ee waan joogay sideeda ayaan ku joogayaa waxaa dhacday buu yiri sidii ayaan ku joogay sanadku wuxuu socdo isburo dhowr sano kadib buu yiri waxaan go'aansaday in aan guursado laakiin haddana qof kasta aan damca inaan guursado waxaan ka dhaxarkayaa shaki fara badan waxyaabo armad gabadha aad dishay qofkan uu nafsigu u noqdaa oo qofkan asna ku dilaa oo dhibaato ku geysta iyo wax la mid ah nafsadeedu waxay ka bixi lahayd shaki aad u weyn ma garanay waxa aan sameyn lahay gabadha aabaheed uu dhintay hooyadeedna waa qof aan waxna kala ogeyn oo isaga xanuunsan oo miirkiiba beeshay oo iska xanuunsan aabaheed uu dhintay qof aan u sheego ma garanayo nambarada reerka badana way iga kala baxeen haddii aan xitaa dhihi lahay gabadhiini wax ku dhacay wax ayaan ka ogaay ma garanay meel rasmi aan kala xiriiro walaashay macaan adiga iyo dhamaanba waxaan rabaa inaan idin weydiiyo sideen isku hilmaansiin karaa gabadhaas aan dilay waayo waxaan rabaa inaan nolosheeda hore wato ma rabo nolosheeda inay stop noqoto waayo waxaan rabaa inaan noqdo qof hore u socdo dhowr mar ayaa waxaa guur ii soo bandhigtay gabdho badan weliba qaar ka yimid Mareykanka iyo Yurub laakiin markasta markii aan ka aqbalo mar laastig ugu dambe ayaan ka shakinayaa oo leenaw qofkan qofka ku dili lahaa waa stop markasta qofkiisa guur isoo bandhigta sas ayaan kaga baxayaa dhowr iyo 10 qofood ayaan guur ku heshiinay
haddana waan kaga baxay sanad gudihiis ayaan dadkaas oo dhan guurkooda heshiinay laakiin ma jirto qofkan ka aqbalay oo aan irada okay noo soo gabagabay aan gurigooda galnay sida markii la hadda waxaan ahay single weliba sabab u noqday xaaskiisa geerideeda waxaan rabaa inaan weydiiyo ummadda Soomaaliyeed sideen isku ilowsiyaa gabadhaas aan dilay oo nolosheeda hore u sii wataa because waxaan ahay qof nolosha kale henisare waxaa kaloo nolosheeda ka burburay dhaqaalihii faraha badna aan haystayna waa iga dhammaadeen ma garanay xitaa maanta dhaqaale aan ku dagaalamo ma haystin dhaqaale aan wadankii intaan kaga tago aan meelo kale aan ku aado ma haystin waxaygu waxay noqday wax yar oo dukaanka saaran markastana waxaan dareemayaa qof markuu idaba socdo cabsi aad u fara badan sideen isku ilowsiyaa gabadhaas aan dilo oo nolosheeda kusii wataa Soomaali ila soo taliya salaam calaykum وعليكم السلام قفلنا بدي شو بالعالم معنا وطلع ذي ما بره قفلنا بنعادنا الدشي نفس الدي قويسي أصحن أني جاين لبا حلن كوهايا كل تيم كا كل صوت لندونان لبا حلن كوهاي بحيث حلقة كوبات إن بوليس ستيشن كتبتو بوليس كسولي تروح أو شلك حلقة دعاي مقالة ماشيس كدعاي دكان كنا بركيسنا عسيا كدعاي aniga mas'uulka ah inaad dhahdid taas waa taas tan labaad waa inaad raadisid because markii lagu siinayo gabadha qabiilkeeda waa taqaanay qabiil jufo adeer ilaa ay weelkeeda ku tagtay soo marka qabiilkeeda raadi hadii aad ogtid maqdhow si ilaahay ku abuurtan u laabo because qof xaaskaaga xilahaaga ah waxa ku dalbatay ciidan waa waxyaabaha jiro ee ugu badan dilalka ka dhaca caalamka yani waa nin naagis ku dalbada Mooriyaan iyo naag ninkeed ku dalbata Mooriyaan soo marka labada qof jista isfaham weysay oo maxay tahay iskeel weysay nolosha isku keen weysay ama dhaqaalaha noqdo ama waxa noqdo wax lagu kala booday ma ahan in asigana uu ku dalbado Mooriyaan ayadana ma ahan in Mooriyaan ku dalbato hadii la isfahmo in meesha lagu kala tago oo aan waxba la isku dalbanin ayadana wax ku dalban adna wax ku dalban hadii ay dhacdo in qadar dhaco qadar baad waa dhacay qadar aad dhacay because geeriya dhacay soo ma haduu qadar dhacan waxa la rabaa in adiga aad raadisid familigeeda iyo reerka ay ka dhalatay iyo qabiilka ay ka dhalatay because Soomaali waa qabiil iyo jufo adi qabiil aad ana qabiil ahay soo marka qof kasta maanta waxa jira marka aad rabtid inaad qof raadisid waxa lagu leeyahay qof waa qolama waa qol hebel waa saas jufo success ilaa ay last la isku soo degto soo marka gabadha waxa raadisaa reerka ay u dhalatay oo rasmiga ah raadi after waxa si raadisaa reerka jufada ay ka tahay kadib ayaga ku sheegi doona wax ehelkeeda adeeradeed maxay aabe la dhashay aabeed wiilal gooni dhalay waxsan ay ku sheegi doon taas waa taas oo magta inay siisid ilaahin u laabatid ilaahin isku xir gabadhaas sadaqa fara badan bixi because xaaskaageed wad ka khaldantay sadaqa fara badan bixi insha Allah waxaan jira dhanka diintan inaa wax ka weydiiso wadaadada diinta oo caalamka meel ka soo because maanta caalamku wuxuu noqday hal qol uu noqday soo marka wixii hal qol noqday waxa laga rabaa inay wadaadada wacdid oo dhahdid sidee xukunkiisu noqonaya maxaan sameeyaa maxaa xalab maxaan maraa bas waxa aad gashay dhiig muslim just ma ahan yani ma aadan dilin tixsima aadan dilin ama maxay tood jiir ama dooli ma aadan dilin qof dhan oo bin aadan dishay soo qof bin aadan marka dishay waxa loo baahan processka wadanka aad joogtid loo maro markuu accident ama dil dhaco processka loo maro wadanka aad joogtid ina u martid kaas waa kaas iyo processka in qofka ehelkeeda iyo qabiilkeeda aad raadisid kadibna aad magdhow siisid aad soo maxaytood u bixisid sadaqa far badan aad masaajid la dhisay waxa ugu dirtid aad maxaytood hadii ay suurtagal tahay in aad xaj ku tagto u soo xajisid oo ilaahayna u baridid markastana aad soo xasuustid aad u duceysid because dambiyaad ka gashay waa dulmtay dulmi weyn u geysatay soo marka taasna ku kula talina waxa rajeenaa in team kale ay kula soo talin doonaan family oo museen oo inay kula soo talin doonaan tan labaad aan rabay inaan ku sii wixii tahay marka aad rabtid inaad guursatid oo guurka culayska koro ilaahay u laabo istighfaarta badso waxaad kaloo samaysataa salaad istikhaaradku markaad kutid ilaahay wadooyin far badan ku fura markastana ku dadaal in tasbiixda waxyaabo far badan farajo badan ilaahay ku fura markasta tasbiixso u ducay sadaqo bixi sadaqa jaari masaajidda ugu dar dad baahan ugu dar dad ay ma aqoona ka qowday wixii inta nolol aad u qabanaysid just ugu yaraan xitaa hadda inta dhimata sadaqo bixi ilaahay waxaan kaaga rajeynayaa in ilaahay qalbigaaga ku qaboojiyo la dhihi karaa ilaahay inuu guur khayr qabo ku siiyo insha Allah dambigaas aad gasheen waxaan rajeynaa in aad raadisid dadka ku shaqada lahay
ama yani processka wadanka aad joogto waa kuu sheegay inaad martid ama processka qabiilada soomaalida ay sameyn aad samaysid inaad sadaqo bixsid ina iyada xasuusatid oo markasta aad u duceysid ilaahayna aad isku xirtid kolley dembiga aad gasho dhiiga taas aad rabbiga xisaabtamaysid laakiin ugu yaraan sadaqa iyo wax u bixiya waxaan rajeynaa marka insha allah family umuseen inay qaybta community kugula soo talin doonaan asxaabi maxay idinla tahay wiilkan muxuu sameynaa maxaad kula talin laheedin inuu sameeyo ma inuu Soomaaliya yimaado oo sharciga isku dhiibo sharciga Soomaaliya ka jiro ma inuu yimaado ehelkeeda raadiyo oo gobolada ehelkeeda taga ehelkeeda deegaan tago ma in uu maxay booliska oo South Africa isku dhiibo bal waxa aad kula talin laheedin qaybta community ugu soo qora because commentigiina wuu akhrin doonaa wuuna arki doonaa wuuna idinka sugi doonaa jawaab uu ku qanco jawaabta commentiga ugu soo qortiin ayuuna ku dhaqaaqi doonaa soo marka adinkoon waxna soo caynin adinkoon waxna soo yacni iflagaadinina comment uu ku qanco uu soo mixti qalbigiisu qabowga uu soo qora insha Allah maxamed sallallahu naxariisto because markaas naxariisto loo baahay markii ilaah naxariisto dhammaantiin waxaa jirjana khayr iyo barako jannada dadka subscribe ku saaraan like ta saaraan insha Allah la share garay asxaabta lagu share garay gabar yar oo qasooyinka sheekaysiya andi joogta la dhaho ama islaam weyn dhahad gabadha la islaam weyn oo qasooyinka sheekaysiya la taliyada inta joogta dhaha insha Allah waxaa jirjana dhammaantiin khayr iyo barako كومنتينا نومهم